صبري ويلي إنها فضلت صباح ما وكشل هيا ورفاضي إرهاتا منصن بس قاعدة كده هلنا marka waxa keenaysa hay ka badan ay dadka dhahaan way qofku waxa soo waalay waa markii waddanka lagu soo dhaweeyo oo lagaaga soo dhigay inta inuu soo jiro laakiin maxaa u dhaxeeya waa inta u dhaxaysa bad baa u dhaxaysa saxara u dhaxaysa dhibaato u dhaxaysa jug baa u dhaxaysa cid og ma jirto waa waddankayga weliga meel kale ogama bixin inaan ku dhex wareego mooy afrika gudihiisa mooy meel kale kama aadin wada fakarka tahriibka wuxuu galay gabar aan saaxiibanahay ayaan meesheeda waxaan ka samaysan jiray timaha anagoo habeen aroos u socona baa ila xaliimo aaway saali way tahriibtay talyaaniga waba soo hadash habeenka dhawaa seexan way marka anada markaas tahriibku wax aan aqaano ii baxa wuu igu jiray hamiga laakiin waxaan aqaano aan aamina raadinay way talyaaniga dhow dadkooda tagayaan maadaama meeshana aan nolol ku haysan qof dumar aan ahay maanta waxba aan samaysan karinin sidii baan ku soo baxay taasaa keenaysa gabadhii la dhahay oo inta lagu soo kale oo habeenka ka seexan waay adiga uma sheegin walaasha iyo waan soo dhaqaajiyay ilaa inta saxara ku soo jirnay cunto kufra noogu horeysan cuno markaa kufranimidna cuntadii waan cuni weynay waan ku sakaraadnay waa calool intaasoo beri qatanayd oo haddana biyo gaas ku jira batrool lagu shubay la siinayay marka aad bay u adagta aad bay u adagta waxaa sii dhar jidkii oo lagugu soo garaacayo gabdhihii la kufsanayo wiilashii la jir dilayo qofkii oo gaariga saaran baa ka dhacaya hore u ka dhaqaajinaya asagoo gaariga ka dhaco laga tegay qoftii qaylisay oo intaa ka ritaan soo jiiday muddo dhan dalqada waxaa iga gelaysa boorkii cabdibilaha ila waa saxaree intii lagu hadlay qabtaan aan soo jiiday waayo waxaa looga tegay meel cidlaa oo cid caawis lahayn oo hadduu bahal kugu yimaado bahalka laftigiisa iska dhaafa qoraxdii baa saa kuu dubanaysa anoo keligay baan soo mari waay rafaad iyo dhibaato ku soo arkay qofka waran 3 ilmood wato haddana naas u dhigaya haddana wuxuu cuna haysanin hooyooyin ilmo wato waan soo arkay ama annaga hana ahaadaan ama qolo kale oo adu dariskeena ha ahaado hadda maanta anoo everything soo gadanaya wax samaysanaya ban awoodeyda aad u adag tahay hooyo kasii waran aan biyana la siinin oo naasna u sii dhigaysa aad bay u adagta aad baan u ooyay وانا عاوني كما هرينين لكن gabadha hadda ila tariyaanku aan arkay hooyo aad u adag bay ahayd aad baan uga naxay waa ilmihii xataa ma yaqaana ilmaha la xushmeeyo waa ilmo ma wadahayo iyadoo xabadii ku wata lagu dul garaacaya xaamilooyin hooyooyin ah oo dhabarka lagala dhacayo waxaad arkaysaa suunka biyaha ma aragtay intii lagu nuugo laga shubto fustooyinka laga shubto baa lagu garaacay mabud kadib waxa igu soo naxdin badnayd markaan arkay qof walaalka intuu gaariga ka jabay aad caawin karnin oo gaarigana kugu yar yahay oo biyo aad siin karnin oo meydka banaanka saa u daadsan yahay rag iyo dumarba waa aad u adagta aad tribal waxa dhacday qolada isu gulubka ahayn oo gaariga hore raacday habeenkii ayagoo baxayaan la soo kulanay inaan raacaan dabcan marka waxaan ku heshiin weynaa lacagtii alashan wiilkaan iskuursanaa wuxuu yiri aniga waxaan dhiibayaa anigana feeri baan rabaa gabadhan hala waan dhiibada leeyahay anna waan dhiibayaa maadaama moogta markii last time waxa u timaad waa raqiis waxay dhan maya lacagtaan ka ceshanay doontu way baxday muddo waxay socotaan malaynayaa 1 hour ma dhameen ayagoo qaylinayna soo waceen waxay ku saarnaayeen
73 qof tooreeyay naga soo waceen nabadbaadiya hamar bay la degtay qayladii ugu dambeysay marka naxa waxay ahayd waxaa saarnaa gabar markaas wiil yar dhashay oon isnaqaano oon ahla habeenkiiba la hayay baa ka mid ahayd oo saarnay waxaa saarnaa 3 ilmood ila tiriyaan oo mid aan 1 sano jiro midna umul bay kula jirta midna waxaan u malaynay inuu 4 sano jiray saa ku badbaadina ma garanayno sidii bay ku dhinteen wax ka haray ma jirto aduu dadkii bay ugu adkaada waxaa layidhi qof walba califka sulaysa ciiday soo bax waa soo baxay habeenkii ka dambeeyaan doonta soo raac doontana soo saara waxay ahayd alwax 28 qof baan ahayn oo marna Tunis aan noqonaynay marna Liibiyo marna aan badaynay san u wareegaynay bishii 8 koodeeda waxaan qabtay 27 bisheedaan soo raacnay koodeeda waxaan qabtay Maltayska anagoon ku rafaadnay meeshii biyihii na googooyin intaas oo dhan cusbadii iyo gaaskii isku daatay aan wada googo'anahay oo mid ka daran tahay oo qaar xataa ay ku dhex waashteen inay isku tuuraan ee badda rabaan anagu aan ka celinayno sidii baan waxaan ku nimid Malta markaa nin waxaa dhacday mana aqoontii systemka lama soconin si loo socdo jeel baa laga geliyay meel baa lagu xiray meel dad badan wada joogaan waan sasay aan laftiga dadka daaqadaha ka soo wada taagay markaan arkay waan sii qaracmay waxaan moodinaa Liibiya ku soo noqday Malta waxaan ku jiray muddo 7 bilood iyo xoogaa xabsigeeda Malta jooga la qabsan waayay markaa marna ku soo baxay meesha waa fiirshay in yar baan iri shaqaystay anoo walaaca joogeeda way qaban waayay waayo waa meel qaystay wax yar oo transport ka dhigto waxaan imid halkan oo tareen saaran lay qabtay tareen lagu qabtay waxaan ku faraha wandiida markaan dhigo waxaan ku iri Swiss baan aniga u socdaa Swiss baa marka la yiwaa hali qoftaas tiraa ka san deganahay oo horeyna u soo celiseen habaali laakiin anaga nooma iman karto uma hayna chance inaan habar ruuxay ascaara soo galay anoo ogay laakiin ragga aad bay ugu dhintaa ragga cuntana ma helaan hortaada lagu dilayaa hortaada wax walba lagu sameeyo la garaacayaa aad bay wiilasha ugu dhiban yihiin aniga waxaan naxdinta iga keenay marka wiilkayga aan habarto soo tahriib waa taas waxaan ogaa rag dhan inaan saxaan loo sameynay Facebook gibiga soo wuxuu yiri hooyo saxaraan joogaa waxaan ku yiri hooyo saxaro waa meel dhibaato badan iyadoo nabada baan dhibaatada soo arkay laakiin iyadoo maanta dagaal ka jiro hooyo meel maahan ku iskaga noqo wuxuu igu waaba joogaa Liibiya joogaa waxaan gacanta ku haysta male ma caawin karo 8 bilood baan urka gabadha yartaa urkeedan leh hani anuu libaaxbaa haysan Liibiya iga soo wacay wax ma awoodo meel wax ka keen mala xaalku wuxuu yahay adigu ummadda Soomaalidan u dhaxgalay si wax la soo soo aruurniyay oo xataa deyn aan u galay dhibaato wax wiilkii la jagayo la dilo oo la waxayo ummad ba gurmado oo meel walba laga soo caawiyay daryaal weyn haduu xanuunsaday diibjaa ku dhacday wuxuu yaalaa dhakhtarka waa Liibiya iyo rafaadkii si loo garaacay mar dhulkan dila dhigaa biyo lagu shubay qabow baa soo galay inta lacagta laga sugay qof wiilka barto hay walaa hooyo walaa wax ogaa ma jirin abiisna wuu dhintay hooyisna ma ogeyn dhikar bay leedahayba ujeeda dhikar bay qabtay inay waalato
uu dhiig ku kaco waan ka qariyay alla markaa dhalato dhawaaqday alla dhadiyo dhaxanbayga inaan dadkayga la hadlo oo qof caawiyo ilaahay mooyeene aynan lahayn waxaa ku dhacaya dadka markay soo taaribaan wiil iyo gabarba in la dijir dilo in la kufsado in maxaan dhahay lagaa soo qaado qof xawayaan ah waa wax aad u adag waa wax mar walba dhaca wax hadda ku eg ma aha mar walbay dhacdaa